dagmada baki xildhibaanadeeda la doortay waxa ay ka kooban yihiin 9 isla maanta ayaa xildhibaanadaasi la ansixiyay ladhaariyey isla markaana ay doorteen maayarka iyo maayarka xigeenka degmadaasi hogaamin doona waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka awdal iyo barasaabka xigeenka gobolka awdal ugu horeyntiina waa kan gudoomiyaha maxkamadda gobolka awdal oo xildhibaanadaasi la ansixiyay dhaarinaya maxkamadda gobolka awdal waxay ansixisay maanta go'aanka natiijada hordhaca ah ee doorashada golaha deegaanka degmada baki ee ka soo baxay komishanka doorashooyinka ee dagmada baki laba waxay go'aamisay in doorashada golaha deegaanka ee degmada baki ay ku guuleysteen mudanayaasha kala xisbiga ucud cabdilqaadir maxamed daahir xisbiga kulmiye محمد سعيدي حامد عمر فاهير محمد عمر اسمان حسبي وطني ضيب حسن شاقي ضيب حسن علمي محمد احمد عطي حسين سليمان ابراهيم احمد فارح عبدي وحان الهي وقول دارتي inaanu noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo wabillahi tawfiiq wixii intaasi ka dambeeyay ayaa barasaabka xigeenka gobolka awdal uu kala fadhigooda furay isla markaana halkaas lagu doortay maayar iyo maayarka xigeen cusub hadii aad tartanteen oo dhexdiina tartan ka dhacay yaadi kulli isxuufaysi iyo waxa jira barihaas oo dhan halkan uu ku dhamaaday iminka inaad dhamaasha saartaan noqotaan dad walaala oo isla socda isku hambaliyaysan sida qurxoon ee doorashada xirti xaalta ugu qabsateen maayarkana waxa la helay doortay golaha deegaankooda noqdaan gamacaaga midib marka bulshada loo wada adeego oo service u qabana dadkeena masaakiinta aad baan idin hambaliyay nabadgeliyo iyo nabaddiino intii alla u qoran oo ku soo baxday sanadiyeen ku dhow 6 bilood ka badan baa martay idinkuna adaasheen anana andaalay wixii loo socdayna waxa ahayd natiijada maanta waxaan nagula dardaarmayaa in dadka martay mas'uuliyiin horeba loo sheegay in muwaafaqo aad martay aad yeelataan oo dadka xil qaadaan dadkii martay in doortay ee bacadkay mi taagnaayay baabuurta uma tagay inaad martay xil qaadaan oo mas'uuliyadda qaadaan oo lagu mashquulin martay isla qabsi iyo isirri aan lagu mashquulin muwaafaqo la niga baahan yahay in dadkiina xilkii aad u qaadeen ad ka soo baxdaan baan idin ku dardaaranaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa qolada deegaanka ee cusub oo la doortay maanta dib loo doortay oo aad baan ugu mahadcelinayaa kuwii doortay kuwan dooraba waxa dhimanay deegaanka oo waxa weeyaan wana gacmahayagii wana kuwa go'aanka yani dalkan la noogu dardaarayo iyagu go'aaminaya tartanku ku cudfi iyo doqoniimo iyo naxsi keenay inuu noqon baa loo baahan yahay tartan hadii la wada nolol ma jiris haddaan soo shaqeynaa oo shaqo qabanayna wax waajib ah oo nagu lahaa oo baan qabanay haba yaraatay wax ka soo qabanay intaan ka badan oo la nooga fadhiya maantana tartan baan galay ariyo maxamed raacay wada guuleystay oo hambaleenaya سيد ما يركضين كذا طيب حسن شاكر كل كتنوا ولا وضع بكبدنا برعادي برمدو لقينا وجههم بليا واحد كمان سيجاره بليا يا دمان سي عن سرسنة ولا يعني معناها أخوة سمين هذا كان محتاجين كل قرارنا يعني لو ينتهي بدأ قشها لو جرتي لعبت لو جرت هذا حكي إنسان اليوم حوالي ثمان لو جرت قشها واحد بليا يا ولا عبد الله علي يوسف on cable TV برما